kulan wanaagsan ومركل iyo barnaamijkeena sheekooyinka jacaylka sheekada maanta sheeko aad u xiiso badan oo muddo dheer sheekada magaceeda waxa la xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka sheekada waxa qoray Cabdiraxmaan Maxamed Guul waa mar kaleeto iyo sheekadeena xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii 23aad ay noo marisay Subeer oo gurigooda daaradda habeennimadii saqdi dhexe soo fadhiistay kadibna aabihii u yimid oo markii uu ka yaabay aabihii ku yidhi aabo maxaan ku qabtaa ee aan imika laga maarmi karin ama aanay kaaga dambayn waxaan rabaa inaad ii sheegto go'aankaaga kama dambaysta ah oo aanay ku jirin inantii markii horeba aynu isku diidnay oo ah Salma bal haddaba aynu u gudagalno qaybta 24aad ee sheekada iyo wixii hadalkii habeenka Subeer iyo aabihii dhexmaray uu ku soo dhamaaday odayga Subeer aabihii intii hore oo dhan wuu fiicnaa Subeerna niyadiisu marka ka dambaysa ayay soo wanaagsanaanaysay laakiinse waxa mar kaliya qalbigiisa dab ka hulcay markii uu ku yidhi kuma jirto inantii aynu hore iskula ogeyn ee aynu isku diidnay taasoo Subeer ka dhigtay inuu iskala garan waayo aabihiina uu ku yidhaahdo gabadha uma baahni odaygii abbaar buu u sii waday sheekada dabadeedna Subeer ayaa ka codsaday inuu iska hoydo isaguna si uu u hoydo oo uu iskaga seexdo sidii baana u dhacday oo labadoodii qolbay kala galeen waa kan haddana ninkan dhinac walba dhibaatadu kaga wareegsan tahay muxuu sameeyaa dhinac Salma ma hayo oo waa adiga arka waxa ka dhex socda xagga galana odaygii maba maqli karo magaca Salma arrintuna waxay ku noqotay ileen meel la ciirsadaana Subeer goor dambe oo waa ku dhawaadkii ah ayuu gamay intii hore oo dhan wuu isrogrogayay aroortiina wuxuu soo kacay meelaha 10kii subaxnimo oo wuu diiday hablihii guriga ku garaacay teleefankiina wuu bakhtiistay si aanay cidina ula soo hadlin halka marka ay xaaladdu maraysay iyada waqtigan Salmi wax dhibe maba haystaan oo maba oga waxa dhacay waxaanay u diyaar garowsan tahay ama isku diyaaranaysaa ballantii caawa ay ballansanaayeen dhibtii Subeer qabsatay iyo hawlaha dhacay oo dhan maba oga Subeer markii uu u soo baxay bannaanka waxa uu yimid meheradoodii waxaana gaadhay waqtigii qadada iska soo noqoy oo iska seexay waxaa la soo hadlay saaxiibkii Salaan oo u sheegay inuu maanta tagay xafiiskii Salma nasiib darase aanu la kulmin oo ay waqtiga ku maqnayd hawl dibadeed sidaa darteed uu ka warsugo isaga intaa markii ay sidaahdeen waxa soo dhex galay teleefan kale waana Salma oo rabtaa inay la hadasho Subeer si ay u xasuusiso uguna adkayso ballantii Subeer si wanaagsan ayuu u salaamay ugana qaaday salaantii wixii ay weydiisana wuu uga jawaabay 7 habeenimo iyo goob iyagu ay cayinteen ayaa lagu ballamay way dhigtay teleefankii Subeerna wuu careysan yahay hase ahaatee wuu qarsanayaa oo wuxuu diidan yahay in arrintiisu kala daadato waxay sidii ahaataba 4tii galabnimo ayay la soo hadashay Hodan iyada oo ka wareysanaysa xaaladiisa iyo sida uu yahay Subeer waqtigan waxaad moodaa inuu u soo dabcay oo uu hiloobay una baahan yahay la hadalka Hodan jeclaysanayana dhawaaqa ka soo baxaya abbaar baa la kaftamay saacad kadib waxaa lagu ballamay in caawa meelaha 9 ama 10 markuu soo hoydo ay la soo hadasho ama isagu uu la soo hadlo sidii bayna ku kala tageen saacadu waa 5tii Salmi dhinaceeda ayay ka gashay diyaar garow maadaama ay in badan isku careysnaayeen Subeer waxay doonaysaa sidii ay u soo jiidan lahayd marka waxay soo qaadanaysaa sad isku eg oo aad u qurux badan oo xataa timaheeda lipstigeeda dharkeeda kabaheeda saacadeeda boorsadeedaba intuba way isku egyihiin waxaana lagu yaqaanaa labiska caynkaas ah badanaa dadka aadka u ilbaxa ah ee yaqaana sida shayadu iskugu soo baxaan Subeer xilliga si caadi ah ayuu iskaga labistay waqtiguna wuu soo dhawaaday waxaana la soo gaaray 6dii iyo badhkii
intii uu soo socday ayay saacaddu timid 7 oo rubuc dhiman wuxuuna meeshii ugu yimid gaadhigii Salma oo meeshii yaala waxay ilaabeen markii horeba in labada gaadhi midkood laga tago oo mid un ay wada ka haystaan deedna Subeer soo daaday wuxuu u sheegay inay iska xarayso gaadhiga sidii baana la yeelay waxa la ka haystay kii Subeer hoteelku ma foga in yar kadib waxa la soo gaaray hoteelkii waxa ballanta qabatay Salma xitaa waxay sii ballamisay cashada iyo goobta ay fadhiisanayaan la soo gal waxa la soo hormariyay cabitaankii abbaar bayna iskaga sheekaystay intii cashada loo keenayay Subeer inta badan wuu aamusan yahay wuxuuna sugayaa bal waxa ay ku hadasho Salmi hadalkii bay qaadatay waxayna tiri inayahu adduunyadan aad arkayso waxa la isku sameeyay lab iyo dhidig waxaynu nahay kuwa aan kala maarmin haddaad mooday in aad iga tegi karayso ama aad u haysato in aan ku dafiri karayo oo aan jacaylkaagii ilaabay been ayaan u sheegayaa naftayda adiguna sidoo kale Subeerow waxaad ogsoonaataa in dhibta aad maanta igu haysato oo ah inan baad suuqa u istaagtay ay tahay marka hore mid ceeb inagu ah aniga iyo adigaba iyo iyadaba hase ahaatee ogsoonow inaanan dafiri karaynin in jacaylku waxyaalo badan ku ilowsiin karo dareeno fara badanna kaa qaadayo maan ogeyn runtii wakhtigii aan la hadlayay inanta iyo xataa markii aan adiga ku jawaabiyey dib ayaan u xasuustay hadalladii aan idhi waanan garawsanahay khaladkii aan galay walow ay tahay wax aan filaya inaan sameeyey ama adigoo aad samayn lahayd waxba maan samaynin gabadh ayaan ku idhi ninkayga iiga hadh waad ii sheegtay inaan waxba idinka dhaxaynin waan se qaadan waaye waxaan kuu sheegayaa oo aanan dafirsanayn diidaneen qarinaynna una arkayn dhibaato inaan ku caayo adiga iyo iyadaba aniga oo kuu caayay kalgacal iyo muxibbo aan kuu qabo haddaanan dankaa lahayn iima suuro gasheen inaan la kulmo gabadha inaan kula hadlo adiga iyo in aynu halkan isugu nimaadno caawa iyo in aan in badan dushaada ka ooyatoona waan xasuustanahay waxaad igu tiri markaad wada jirkeennii iyo wehesha diidaan anna kale u weecdo wasiisi baan ku maqanahay waa ereyadii malaha maad ogeyne cajaladii aad ii saartay markii aad aabba la hadlaysay walaal maan diidin wada jirkeenna wada jooggeenna weheshigeenna iyo wax isku ahaanteenna toona ma aqaano oo qof adiga aan ahayn dibnaha uma kala furin aniga oo niyad u haya haddii aad i rumaysanayso waxaa tahay qofkii iigu horreeyey ee ii bilaaba sheekada ama baabka jacaylka waxaana tahay kii iigu dambeeyey ee ilaa hadda xiisadda ii dhiga walaal waad garan kari lahayd haddii aan macallimiin badan leeyahay waad ogaan lahayd haddaan suuqa ku jiro waxaan u noolahay waa adiga inta ka hadhay noloshaydana uma baahni inaan cid kale la qaybsado maalintii dhoweyd ee aan ku lahaa waan kaa gooya niyaddayda iska daagoyne daqiiqad kama maqnaan kartid wakhti walba waad ila joogtaa wehel aan adiga ahayn ma lihi walaal aan adiga ahayn ma lihi eeg meesha aad igaga tegayso dib u raac dhibta aan kuu soo maray iga gooso idil oo waxaad doonto igu samee mid uun iga daa laakiin waan kaa tegayaa taasoo igu ah kelmadda aan ifka ugu necbahay walaal caawa waxaan ku tusayaa 6 sannadood iyo 5 bilood ka hor ammaano aad ii dhiibtay waxaanan kaa codsanayaa in aad ii tixgeliso iina dembi dhaafto Salma waxay markaasi soo saartay silis dahab ah oo uu ku qoran yahay magaca Subeer oo ah kii uu u geliyey maalintii ay ka dhoofisay madaarka Hargeysa wakhtigii uu ka haysanayay inaabtigeed waa ninkii guursaday ee Mursal intii ay soo noqotay may tusin Subeer waxaana aqalgiisa gashay markii ay ninka raacday kulana soo hadli weyday ayay siliskiiba tuurtay shoog ayuu ka qaaday aragtida siliskan oo wax iska bedelay aani jirin waxaanay ku tiri wakhti kasta oo aan ku imanayo iyo mar kasta oo aan ka ahayn muddadii yareed ee aan ninka kale la joogay weli jirkayga kama furin
sida siliskaasi ugu xidhan yahay qoortayda ayay naftayduna kuugu xidhan tahay. haddii aad diidayso iyo haddii aad i dayrinayso iyo haddii aad didmo igaga tagto, intaba waxaan ahaan doonaa ama aan ahay qof u neel Subeer. si kastoo ay ahaato, wax kastoo aad yeesho, waxaan kaa codsanayaa oo aan mar labaad walaalku leeyahay ii dembi dhaaf. intaan weligay noolahay waxa aan idaynin wada dhalashadeeni waa xeensigaagii. Subeer aad ayuu u fikirayaa. wuxuu la yaaban yahay hadallada Salma ee meel laga maraa jirin. ficilkii habeenkii dhoweyd uu arkayay, hadalladii ay hore ugu tidhi iyo waxyaalo badan oo kale. ma gaadhi karo go'aan uu ku yidhaahdo iska tag, mana yeeli karo mid kale oo uu ku yidhaahdo waan kaa oggolaaday. ha iska dhegaysto hadallada dhiilada leh ee murugada ku dheehan tahay ee ka soo yeedhaya afka Salma. Subeer mar dambe ayuu ku yidhi, waxaan ku weydiiyey xalay saacaddu markay ahayd 6:00 halkeed joogtay. Salmi waxba kamay qarin. waxay u sheegtay intii meelood ee ay soo martay, waxay soo qabatay iyo wixii ay u baxday. wuxuu weydiiyey yuu ahaa wiilkii aad la socotay. iyada oo dareensan inuu arkay ayay ku tidhi, Subeerow, inankaasi waxaynu nahay jaar. dhexda ayaanan ka qaaday, aniga ayaana ka codsaday inuu isii raaco. oo isagu wuxuu doonayay inuu ku dego meel dhexe oo uu kula balansanaa sida uu ii sheegay gabadh ay wada sheekaystaan. balse goobta aan tegayo oo aad u durugsan awgeed ayaan ka codsaday inuu isii raaco oo uu iila soo noqdo. waanu iga yeelay iyada oo ay dhibaato ku tahay. halkaa marka ay marayso ayuu ku yidhi, waayahaye weydinkii guriga wada galaye haddaad inanka dhexda ka sii qaaday muxuu gaadhiga ugu dhex jiri waayey. waxayse ku qancisay in inantii guriga lahayd ay ku adkaysatay inuu soo daadego wiilku, maadaama ay ceeb tahay qof la socdo qof in meel bannaana lagaga yimaado. sidii baanan ugu yeedhay. markii dambena waanu soo wada baxnay oo waxaan dhigay halkii ballantiisu ahayd. sidii baanu ku tegey. Subeer wuxuu ku celcelinayaa, sidaa kumuu tegine maxaa dhacay oo kale. markaa Salma waxaa maskaxdeeda ka baxsan inay siisay alaab wiilka. cabbaar bay murmayeen oo ay lahayd wax kale oo dhacay ma jiraan, isagoo leeyahay sheeg waxa dhacay. mar dambe ayay xasuusatay oo ay ku odhanaysaa, ma waxaad u jeedaa oo aad arkaysay ama lagugu yidhi bacdii alaabta ku jirtay ee aan siiyey. waa daacad Salmi, waana qof u dhalatay inaanay waxba qarin. hadalladeeduna aad u cadcad yihiin. intay qosashay ayay ku tidhi, walaalo, waxaa ku jiray chocolate, nacnac, xanjo iyo sharaab ay soo siisay inantu. aniguna maadaama aanan u baahnayn waxaan gartay in aan siiyo wiilka, mar haddii uu ka habsaamay gacaladiisii si uu uga farxiyo. Subeer intii hore oo dhan wuu cadhaysnaa oo wejigiisa waxaa ka muuqatay daal. hase ahaatee markay intaa ku tidhi ayuu si qurux badan ugu qoslay. hase ahaatee Salma ayaa iyaduna bilowday su'aalo. waxaanay ku tidhi, waxaan ku weydiiyey waa ayo cidda idaba socotay. dee gurigana waxaan ka qabto maxaa lagugu soo sheegi waayey. ii sheeg cidda arrintan kuu soo gudbisay. Subeer wuu ka dhaadhicin waayey inuu isagu arkayay oo aan cidina u soo sheegin. Salmi waxay ku adkaysanaysaa cid baad ii samaysay oo soo ogaata wax kasta oo aan qabanayo. maxay kaaga badan tahay? maxaadse ku falaysaa? soo ma ogid arrimahaasi inay kala fogaan iyo isnacaybsi uun keenaan. walaal, haddaynaan is aaminin u malayn maayo in qofna qofka kale ilaalin karo. iyada oo kaftamaysa ayay ku tidhi, Subeerow, show hinaasahan aad igu sheegayso kaaga ayaa ka xun. waan sigtay. waxay ku filnayd oo keliya madaxa oo aad inankaa ku dhufato. ilaahay baase naga badbaadiyey. ee waxaasoo hinaasa ah iska daa walaalo. halkaa marka ay marayaan ayaa loo keenay raashinkii. inankii cuntada u siday ayaa ka dalbaday inay waxoogaa u oggolaadaan inuu u dhigdhigo raashinka. dhammaysay oo iska dhig raashinkii.
lama bilaabin cuntadii ee haddana waxaa la sii waday hadalkii iyada oo uu Subayr leeyahay maan hinaasine wuxuun baan eegayay waxa dhaca iyo sida wax ay u jiraan isaga oo iska adkaynaya inay ogaato inuu weli jecel yahay Salmi intay aad u qosashay ayay ku tidhi walaal waxaa jira waxyaabo aan qarsoomi karin qofka isiraahda qarina lagu dareemi karaayo marka inaad hinaastay shaki ma laha halkaa marka ay marinayso ayuu ku yidhi aynu iska bilaabano cuntada cabbaar ayaa la casheeyey markii la dhammaystayna ayaa haddana halkii laga sii bilaabay kaftankii iyo doodii waxay socotaba wuxuu ku yidhi Subayr Salmaay anigu sidii aan horeba kuugu sheegay ama aad og tahayba ma jiro xilligan xidhiir toos ah oo labadeena inaga dhexeeya sababtuna waxay tahay waad og tahay oo waxa aad burburisay meel kaste oo aynu ka samayn lahayn ama ka dhayi lahayn dhibaatooyinka jacaylkeena marka aad leedahay adigan kugu eegayay in aad jeceshahay iyo in kale marka aad leedahay hal habeen niyadeeda kama bixin haddana uu ku diyaar yahay degitaankaagu aad u baxayso safarka dheer markee iyo goortee ayaan ku rumaystaa waxaan jecelahay maadaama aynu in badan isla soo joognay maadaama aan la inoo kala sheekayn karin maadaama labadeenuba shaki ina kala dhex galay isla markaana uu bilaabmay aamin la'aan kala daadsanaan iyo boholyow la'aan waxaan kaa codsanayaa in aynu ahaano laba qof oo wadaaga walaalnimo aniga nasiibkayga adigana ayaankaaga aynu eegno kuma rabo xiisaha ka bogso war kuma rabe qayrka samayso Salma kuma qanacsana ee waxay ku tiri wixii dhacay wax dambana iman maayaan marka aan ka hadlayo xaggayga marka adiguna ii dambi dhaaf oo intaa igu daa Subayrse xaaladdu waxay ka maraysaa meel aad u adag oo uu ku adkaysanayo inay kala hadhaan waqtiga ay murmayaan ama ay haystaan waxa hudheelka ka socota hees talantaale ah oo ay midhaheega ka mid yihiin haddii aan ku baday ciil calooliyowna kugu riday nabsigii ha soo celin haddaan caawa kuu imid adiguna canaadoo cadgoosa hays oo dhan cashar baa la ii dhigay aan ku cibro qaatay cadhadii iska ilo haddii aan ku baday ciil calooliyowna kugu riday nabsigii soo celin cabashana ku baane haddaan caawa kuu yimid adiguna canaado cadgooso hayso عشر